asxaabta garabkayga waxa taagan injineer Xamse Cumar oo ah injineer bartay adeegsiga qalabka caafimaadka ee loo yaqaan biomedical engineering run ahaantii waxa sidoo kale ay yubahanadii soo jiidatay in injineer Xamse iyo kooxdiisu ay markii ugu horeysay dalka ka hirgeliyeen adeeg caafimaad oo ka duwan dhammaan adeegyadii aad hore u maqli jirteen kaasi oo la tacaalaya dhaawacyada ku yimaada ciyaaryahanada aad baad mahadsantahay xaruntan dad physiotherapy center waa xarun u adeegta bulshada reer Soomaaliland ee kala duwan haday noqoto ciyaartooyga haday noqoto dadka waaweyn ee waayeelka haday noqoto ciyaalka yaryar ee oxygen-tu ku yar tahay ee ku soo dhasha paralysis-ka haday noqoto dhaawacyada ciidanka ku yimaado kale haday noqoto hooyada uur kale oo kale markay dhasho kadib murqihii in jimicsiyo loo sameeyo si ay murqihii dhinacoodii ugu soo noqdaan bulshooyinka kala duwan bay u adeegtaa xarunta dad physiotherapy horta dalka hore uga ma jirin xarun physiotherapy noocani oo dalka dibadiisa loo tagi jiray kharash badan oo ku bixi jiray sababaha noo asaasna waxa kamid ah maadaama dalkii tayadii dawladda aad u hooseyso oo ay jirto wax dhaafsiisan isticmaalka kiniinka ama irbadda ay dhakhaatiirtana isticmaalaan si ay dadka ugu daweeyaan inay jiraan daawo intaa dheer oo dhaafsiisan oo jirto adeegan physical therapy-ga la yiraahdo oo xubnihii iyo kala xubno xanuunkii ama dhabar xanuunkii oo kale loo isticmaalo jimicsiyo ama qalab heer caalami ah oo tiknoolajiyadii la hana qaadaya iyadoo qalabka lagu apply gareynayo jidhkii laguna xanuunkiina laga qaadayo xubnihii istaagayna lagu furfurayo sidoo kale runtii waxa uga dhigan tahay inay heli karayaan wax dhaafsiisan kiniinkii irbadii oo daawo kala jirto oo ah isticmaalka jimicsiyada iyo qalabkan casriga ah ee u adeegaysi dawado kale oo halku qofku daawo xanuunbina kiniin xanuunbina uu qaadan lahaa in mashiin lagu xirayo xubnihiisa ama jirkiisa si xanuunka uga qaadaan sidoo kale xubnihii xidhmay oo kale halkii qalliin loo isticmaali lahaa lagu furfurayo qalab casri ah oo lagu talagalay in qalliin laga badbaado marka waxa weeye waa qalab casri ah yaala oo runtii u dhigma kana fiican qalliinkii ama kiniinkii ama irbadii marka wax weyn bay soo kordhinaysaa baan filayaa bulshooyinka kala duwan waxaan kula talinaynaa in uu jiro adeeg physiotherapy ah oo hore u jirin oo sidaas sheegtay dadka stroke leh faaliga leh dadka waaweyn ee xanuunada xubnuhu kale istaagaan xubna qalabku ku dhaco haday noqoto ciyaartooyga dhaawacyada ku yimaada hadii ay noqoto shilalka dhaawacyada ka soo gaadha bulshada kala duwan inaan adeegan u fulin doono oo qaban doono anagoo la tacaalayna inaan mar walba adeeg ugu wacan bulshada siino bulshada kala duwan waxaan kula talinayaa inuu adeegan physiotherapy-gu ka duwan yahay sidii ka aaminsan yihiin ee ah inay moodayaan gym ama duugis ama massage laakiin ay daawo tahay wax ka duwan ay tahay inta anaga ka daad ahaan tacab fara badan waxaan gelinay inaan bulshada kala duwan ee reer Soomaaliland ogeysiino barno inuu adeegani yahay wax ka duwan massage ama gym si yahay daawo caadi ah oo qofku ku daawoobayo haday noqoto taladeedu dhinaca service-kan aan bixino iyo bahda caafimaadka walow aanay jirin dalka in adeegyadan ama qaybta physiotherapy-ga aan lagu baran waxaan soo jeedin lahaa in jaamacadaha caafimaadka kale ay ku soo daraan koorasyadan physiotherapy-ga si looga baxo ajaanibta dalka dibadiisa ka imanaysa ee inoo adeegaysa siinaysa adeegan oo dhalinyarta caafimaadka baranaysa kooraskan loogu daro physiotherapy-ga sidoo kale annaguna dadaalkayga waxaanu gelinay inaan dhakhaatiirta kala duwan speciality-ga intaanu u sameeyno meeting aanu fahansino wacyiga physiotherapy-ga sidoo kale fahansino inaanay kaliya dadka siinin daawada irbad ama kiniine ay u soo qoraan physiotherapy si ay dadku dawo waarta u helaan horta adeeggan markaanu furaynay maadaama dalka ku cusub yahay talab badan maanan helin waxaan waqti gelinay inaan dalka dibadiisa tagno Hindiya oo tagno meelaha dadka loo diraba ay ka soo qaataan caafimaadka talab badan aan ka soo helno training iyo tababaran halka ka soo qaadano
si aanu u geyno waxa halka loo tagayo wax la mid ah dalkii geyno quality-giisina leh maaragtay qalabka laftarkooda aanu isticmaalayna waa qalabka laga isticmaalo hospitaalada waaweyn ee Hindiya marka dhalinyaradu waxaa leedahay wax kasta waxa ku yimaadaan shaqo طبعا dhalinyar fara badan oo waxa jira adeegyada noocan oo kala imika sameynaya oo soo batay oo meelo physiotherapy sameynaya taasoo kale way fiicantahay wacyigii bay kor u qaadaysaa wacyigii physiotherapy-ga ay kor u qaadaysaa oo fahamkii bulshada kor u qaadaysaa oo inay dadku adeegii moodayeen massage iyo Allahumma salli ala Muhammad jimbi meesha ka saaraysa oo waxa fududaanaysa qofkii inaanu dhakhtar kaliya ku soo dirin inuu iskii qofku adeeg u soo doonan karayo sida uu kiliinkii yarbadaba u doonto salaamada inuu iskii ugu iman karayo qofkii adeeg kula adeegyada aad qabataan inay qof ka badbaadin karaan qalliin oo kale ama shaqo badan oo kale oo ay ku wali ka noqon karaan wax laga qaftoomi karo طبعا salahan waxa jira seedaha oo kala ama murqaha kala dhaawacyo soo gaara ama xubintii oo kala xidhanta adeegan aanu sameeyno kala mashiino waxa jira u shaqeynaya sidii qalliinka oo kala laga badbaadi lahaa u shaqeynaya inay xubintii dilaacday oo kala isu keenaan ama koriinkeeda kor u qaadaan sidoo kale jimicsiyo xubnihii xidhay furfuraya oo qofka qalliinkeega badbaadiyo kale ayaa jira sidoo kale carruurta yaryar ee iyagoo lagu hulaabay yihiin isu qaloocan ku soo dhasha ilmaha markuu 6 bilood ka yar yahay oo ku soo dhasho xanuunka haddii waalidku keeno xarunta physiotherapy wuxuu ka badbaadi karayaa qalliinkii uu ku sameeyay inta lafihii dib loo jibiyo la toosin lahaa anoo markaa qalabkan ku toosinna lagu xidhayo iyo jimicsiyo sidii uu uga badbaadi lahaa qofkaasi qalliinkan oo ku dadaalina mar walba adeegan aanu soo kordhinay dhanka sportska wuxuu si laxad looga qaataa inuu adeego bahda kala duwan ee sportska haddii noqoto ciyaartooyda kubadda ciyaara ama dhalinyarta jiimka ciyaara oo tusaale ahaan hore waxa u dhici jiray dhaawac inuu ku yimaado ciyaartooyga oo uu tagi jiray dalka dibadiisa maadaama oo maanta joogo dhakhaatiir takhasus u leh qalliimadii lafaha iyo la tacaalistii lafaha waxaanu soo kordhinay adeeg lagu daaweynayo dhaawaca ciyaartooyga oo tusaale ahaan hore waxa u dhici jirtay in ciyaartooyga jilibka oo kale markuu dhaawac ka soo gaadho inay seedaha kala dilaacmaan oo seedi go'do oo kale oo qalliin ay noqotay in loo sameeyo qofkii si taa looga baaqsado waxaanu soo kordhinay adeegan lagu daaweynayo dhaawaca ciyaartooyga annagoo qalab caafimaad isticmaalayna iyo jimicsiyo loogu talagalay iyo mashiino carjowdii ama seedi go'day isu keenaya si looga baaqsado qalliinkii marka adeegaas ayaanu soo kordhinay ciyaartooyga dhanka kale waxaanu aad uga qayb qaadanaa championska dalka ka dhaca annagoo si dhow uga warhayno wasaaradda ciyaaraha dhalinyartana si volunteer ah ula shaqeyna inaanu siino adeeg inta ay kubadda ciyaarayaan wixii dhaawac ku samaysan hamigaygu waxa weeyaan inaanu la tacaalno dhalinyarta ciyaartooyga iyagoo da'dooda yar tahay 20 jira dhaawac intuu ku imaado ka fariisan jiray awal intaanu adeegani iman inaanu la tacaalno si career-koodu uu hore ugu sii socdo oo dhalinyarta ka ciyaaraysa gobolada oo kale inaanu u dhaafino heer gobol intaanu dhaafino heer caalami international ay gaaraan iyagoo ka fariisan misana career-koodii aan lumin adeegii sports injury-gana ka heli karaya dalkoodii inaanu fulino insha Allah haddii Ilaahay xamse waxay la tahay runtii adeegan aad bilowdeen ee la tacaalista badqabka iyo dhaawacyada ciyaartooyadu inay kor u qaadi doonto xirfadda ciyaaryahanada guud ahaan dalka aad baad u mahadsantahay runtii insha Allah waxaan fili doonaa adeegan inay ka faa'iideysan doonaan ciyaaryahano badan mustaqbalkana ay dhisi doonto xirfadooda waa tahay asxaabta barnaamijka Ayub Show ee maanta intaas ayuu noogu eegyahay runtii sheekada injineer Xamsana Ayub Haan aad iyo aad ayay dhiirigelisay maadaama injineer Xamse iyo xaruntii Sandaad Physiotherapy Center ay yihiin xarun aad kaga badbaadayso qalliino ama kiniino ama irbad maadaama la isticmaalayo physiotherapy runtii injineer Xamse aniga laftayga cilmi badan baad maanta ii faa'iideysay dad fara badan waxaan oran doonaa intaanad qalliin iyo kiniin ku degdegin waa inaad bal xaruntaasina soo eegto
aad iyo aad baan asxaabta u salaameynaa barnaamijka Ayuub Show ee maanta intaas inuu eegyahay ku xidhno Ayuub Show lana soco muuqaal cusub haddii ay beedmo